in caruurta Soomaaliyeed ay helaan curriculum ama waxbarasho u gaar ah oo loogu talagalay ilmaha aanan gaarin waxbarashada tooska ah sida da'da 1 sano ilaa 7 sano jir si loo koriyo maskaxdooda. abuurida deegaan qurxoon doogsan misna caafimaad qabo taas oo bulshada u galaanaysa inay ku noolaadaan nolol dabiici ah. inaan soo kordhinay ama aan beernay dhammaan geed miroodka waddanka u lahaa sida cambaha, saytuunka, isbaandeeska, liidhanaanta ayagoo waqti kooban ku dhalaayo caafimaadkooda la hubiyay aan ka maaranno fruutiska dibadda looga keeno sida afakaadhada inaan waddanka ku beernay kuna tijaabinay inaan sameeyo macmacaani cake oo tayadu sareyso isku dheelitiran isla markaana ay bulshada nooga heli karaan markay u baahan yihiin sida xilliyada qaar xafladaha qalinjebinta dhalashada iyo aroosyada waxay nooga heli karaan qaab online ah ayagoona soo dalbanayaan inaan ganacsiyada yaryar u fududeyno adeegyada la xiriira dhanka tiknoolajiyadda annagoo siinayna branding and graphic design, digital marketing, web design, software development si ay suuqa ugu sii jiraan ayagoo haysta adeeg la isku halayn karo. waxaa bulshada u qabanaa adeegyada kala ah solar maintenance iyo electric maintenance si loo daboolo baahida maintenance ee ka jira bulshada dhexdeeda. wasaaradda cash crop-iska sida qajaarka yahay sawirsaanta iyo barbarooniga ayadoo loogu maarmayo qudaartii dibadda noogu imaan jirtay isla markaana bulshada lagu faa'iideeyo doono sida ay ku heli lahaayeen qudaar caafimaad qabta oo dabiici ah.